السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برو سواحلي maanta waxaan qaadanaynaa classroom vocabulary. Darasani in the classroom vocabulary waa ereyada fasalka ayaan isticmaali doonaa waxyaabaha yaalo fasalka oo laga helo. Okay, classroom waxaa lagu dhahaa sawaaxil darasa waa fasalka. Jackboard maxaa lagu dhahaa obao oo sabuurad af Soomaali. Clock oo af Ingiriis maxaa lagu dhahaa af Sawaaxili saac oo saacad chair waxaa lagu dhahaa kiti oo kursi. Computer waxaa lagu dhahaa tarakilishi oo computer. Bookshop waxaa lagu dhahaa rafuya fitaabu, dukaanka buwaagta amba maktabada buwaagta lagu gado. Jack waxaa lagu dhahaa jacki oo jeesto. Ben maxaa lagu dhahaa kalamu oo qalin. Teacher maxaa lagu dhahaa muallimu oo macalin. Student maxaa lagu dhahaa mawanafunzi arday. Bag maxaa lagu dhahaa beki oo boorso. Book maxaa lagu dhahaa kitaabu oo kitaab. Fan maxaa lagu dhahaa feni oo marwaaxad. Teacher used a pen maxaa lagu dhahaa Swahili mwalimu alitumia kalamu. Macalinka wuxuu isticmaalay qalin. Student is read a book. Ardayda waxay akhrinayaan kitaab. Mwanafunzi anasoma kitabu. Okay, desk maxaa lagu dhahaa dawati oo miis. Curtain maxaa lagu dhahaa baazia oo daah. Carpet maxaa lagu dhahaa suuliya oo roog. Marka cashirkan intaas oo ku ogyahay cashirku waxay isku ma doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuhu. Talaka taa ku cusub marka subscribe إن شاء الله تعالى.